maanta waxaan soo kin yeeray saxaafadda Soomaaliland isugu yeeray halkan in aan iftiimiyo warar fara badan oo bariyahan dambe la isla dhex marayay oo ku saabsan xisbiga Ucud iyo musharaxiinta xisbiga Ucud oo qaarkood wararkaasina ay sababeen iscasilaadii musharaxii madaxweynaha aqoon-yahan Cabdirashiid Xasan Mataan iyo hadalladii uu ku hadlay gudoomiyuhu shalay toole markii uu ka baxayay magaalada Hargeysa hadalladaasi kuwa ugu waaweynaa waxay ahaayeen xisbiga Ucud sidoo gudoomiyuhu uu yiri waxa lagu sameeyaa qiimeyn dib baana loogu tartamaya taasi waa walaacas weeye ayaan leeyahay xisbiga Ucud tartan buu soo galay doorasho soo galay kal fadhigii golaha dhexe ee xisbiga Ucud waa ka weeyay warqadiisi gudoomiyaha ayaa saxeexay waxay ku socotaa warqadaasi komishanka qaranka ee Soomaaliland waxay ku socotaa xeerarayha guud ee qaranka Soomaaliland waxay ku socotaa gudida diiwaangelinta ururada siyaasadda asxaabta soo gudbin go'aamadii kal fadhigii golaha dhexe xisbiga Ucud waxaana ku saxeexan gudoomiye injineer Faysal Cali Waraabe kal fadhigaasi xilligaasi la qabtay Ucud waxa laba qodobada ugu waaweyn lagu ansixiyay waa kuwan waxa la ansixiyay heshiiskii labada garab ee xisbiga Ucud uu ku bahoobay ayaa lagu ansixiyay waxa kale lagu ansixiyay musharaxiinta madaxtooyada ku tartamay xisbiga oo halkaas ku cad oo qodobka labaad ee kal fadhiga saxaafaduna xor bay u tahay in aragto kal fadhi la galay oo golo dhexe oo fadhiistay oo sharciya in haddana uu saxaafadda ka yiraahdo gudoomiyuhu tartan baa loo gelayaa waxba la qiimeynaya waa mid delqaafa oo walaacsa ayaan leeyahay gudoomiyaha shuruucdii xisbiga ayuu jabiyay laftirkiisu awoodiisana uu ka talaabsaday gudoomiyuhu awood buu leeyahay awoodiisana maaha cid musharaxa noqonaysa iyo cid aan musharaxa noqonayn xisbigu sharci buu leeyahay xisbiga Ucud wuxuu kala qaybsamay hoggaanka xisbiga iyo musharaxiinta sidii aan ku heshiinay qayb baan anagu hoggaanka xisbiga ku lahayn sida Mujaahid Cali Gure xogayaha guud iyo dad lamida ayaan ku lahayn musharaxiinta xisbiguna gooni weeyaan gudoomiyaha xisbiga ayaa laga doonayaa inuu xisbiga dhiso gudoomiyaha xisbiga ayaa laga doonayaa inuu xisbiga dhiso maaha musharaxiintu waxay leeyihiin xilli bay leeyihiin tartanka doorashada iyagu ay kaga qayb galaan laakiin musharaxiintu haddana inay la dhisaan gudoomiyaha xisbiga mar walba waa laga maarmaan diyaar baanan u ahay laakiin xisbigii Ucud waxaad moodaa in qoorta uu iskaga dubay gudoomiyaha xisbiga oo dhaqaaqi kar laayay mar walbana uu saxaafadda la soo istaagayo hadallo isburinaya oo khalkhal ku abuuraya maxay ahayd taageerayaasha xisbiga waana tasababtay in musharaxaygii Cabdirashiid Xasan Mataan aan saaxiibka ahayn inuu adkeysan waayo oo uu hal ka huleelo oo isagu yiraahdo waraan uu adkeysan kar maayo iskaga tagay anu maanta halkan waxa ka cadeynaya anu meel la tagi maayo ninka ugu dambeeya tareenka ka kacaya aniga weeye inuu Faysal meesha iga taga mooyaan ugu tagi maayo maanta taa horta ha ku biyaad ayaan leeyahay waa ta koowaad weeyaan xisbiga Ucud tacab baan naga galay waxa weeyaan waa la ogay sida lagu soo saaray maalintan anagu Faysal u tagnay afar qof baa la joogay Faysal Cali Waraabe xafiiska ayarna wuu fadhiyay xisbigii Ucud sidoo u dhamaa gebigiisa wuxuu ku beeray xisbiga wadani xisbiga siiro baan ka soo dhisnay bilo gudahood baan intaasoo xafiis ku furnay waxa weeyaan in xisbigii la carqaladeeyo maaha in lugta la jiida maaha maanta waxa soo baxaya kolba hadallo iska wadaba oranaya anagu waxaan u aragnaa hadallada uu gudoomiyuhu ku hadlayo la 3 sanadood buu musharax ugu yeedhiyay wuxuu 3 sanadood ka hor u oran waayay ilaa intaasoo sanadood u oran waayay xisbiga waa lagu tartamaya maxaa keenay inuu maanta ku hadlo waxa keenay ana u sheegay shacabka Soomaaliland waa burbur oo xisbiga kulmiye oo dabada ka wado oo gudoomiyahana loo adeegsanayo weeyaan Soomaalidu waxa ku mahamada hunguri wadkii ma arko oo waa hungurigaas war xisbiga Ucud in loo arko in la burburiyo ma dimuqraadiyadda in la burburiyo ma waan ognahay waxa jira waan la soconaa shacabka Soomaaliland oo ka wada dharagsan yahay xisbiga kulmiyana haddii saa isugu sheegay xisbiga Ucud baa sidaa ku burburmaayo gudoomiye wuxuu shalay khilaaf ma jiro taas waa mid xaqiiqad ka fog weeye gudoomiye isaga khilaafka abuuraya mar walba hadalladan iska daba meeraysanaya oo kolba ku hadlayo waa hadallo khilaaf abuuraya oo sharciyadii xisbiga jibinaya awoodihiisana ka talaabsanaya madaxweyne gudoomiyuhu ninka ma weyna waa gudoomiye
xeerka xisbiga ayay ku taallaa halka uu awoodiisu ay tahay nin musharaxana ma bedeli karo cid musharaxana ma keeni karo annaga kalfadhi xisbi baa lagu doortay kalfadhiga golaha dhexe xisbiga ucud ee shanaad baa lagu doortay oo taa go'aamadeedina xeerlaalinta iyo shuruucda dalka oo dhan way haysataa dalka yaan la musharax habaabin cid bedeli karto oo ilaahay aan ahayn ma jirto xukuumadda hadduu isku halaynayo gudoomiyuhuna waxaan leenahay Jamaal Cali Xuseen keligii maaha 120,000 oo cod baa xisbiga siiyay oo magacayaga iyo sharaftayda iyo karaamadeeda ku siiyay kuwaas naga dambeeya shacabka Soomaaliland ee dimuqraadiyadda jecel baa naga dambeeya intana taageertaa naga dambaysa inta dimuqraadiyadda jecel dalkan inuu meel gaadho ayaa naga dambaysa waxaan leeyahay waxaan xasuustaa kelmad qiimo fara badan leh oo madaxweyne ku xigeenkii koowaad ee Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Xasan Ciise Jaamac oo lawyer uu ka yiri cadaaladda wuxuu cadaaladdu ma aha uun shuruucda maxkamadaha ee cadaaladdu waa damiirka dadka weeya maanta hadduu Faysal Arwaaba ku riyoonayo in xisbigii loo halgamay ee halkaas oo dhan la soo gaarsiiyay ee cid ku soo tartantay intuu aayar inta xukuumadda adeegsado aayar isaga cid looga qaadayo oo isagu uu doonayo inuu ku tartamo Faysal mar kaleeto isagoo nin weyn oo salaada tukada oo qowlna la galay waliba mid aan ka yeelin maaha mid Soomaaliland ka yeelaysa maaha waxa uu Faysal yiri markii la weydiiyay heshiisyadii la galay ma kitaab quraan ah buu yiri haayo heshiiska waxa weeyaan waa diiniyan weeyaan rasuulka kaleey salaatu wasalaam waa la ogyahay markii uu gaalada la dagaalamayay heshiis buu la galay heshiiskaasi waxa ku jiray in ninka iyaga soo muslima ee u yimaada rasuulka inay dib u celiyaan rasuulka isagoo kaleey salaatu wasalaam ixtiraamaya heshiiskii uu gaalada la galay ayaa dadkii hadda gaalada ahaa soo muslimay ayuu dib ugu celinayay Umar bin Khattab sidoo ugu carooday waa tii la ogaa halkaas uu heshiis ka gaaray qadarinteeda Faysal hadaanu isagu qadarinaynin heshiiskii waa wax sharciya wuxuu bedeli karaya maaha madaxtooyadana looga yeedhin maayo cidda musharax u noqonaysa xisbiga ucud waa wax go'aan ummadeed weeyaan waa wax dhacay weeyaan anuguna meel allaaliyo meel aan tagayana ma jiro Cabdirashiid Xasan Mataano waa saaxiibkay waxa uu ka hadlayna waa runtii weeye waan ku waafaqsanahay go'aamadii waxa uu ka hadlay kuma waafaqsanaysa inuu xisbiga ka cararo inuu la dagaalamo ayaan filay oo ilaa all the way ula socdo ayaan jeclaa ku eedayn maayo waa saaxiibkay shakhsigu wuxuu leeyahay hami buu leeyahay sidoo doonu sameyn karaya laakiin waxaan leeyahay waxaan ka jeclaa in dalkan wixii aan doonaynay inaan ka bedelo inaanu tareenkayga degine ilaa all the way la socdo ilaa haddana daanu saxaafadu maan ka maqlayoon iscasilaadiisa laakiin wax waraaq uu soo gudbiyay anu ilaa hadda ma hayo marka markuu qofku waraaq uu soo gudbiyo ayuun bad jawaabteeda siinaysa ilaa hadda anigu markuu jawaabta ii keeno isagoo warqadda ii keeno ayaan jawaabteeda Cabdirashiid antaa ka bixin doonaa iyada laakiin Cabdirashiid waa nin wax badan soo gashay xisbiga ucud ninkana in laga dafiro maaha wixii uu gashaday xisbiga isaga soo saaray xisbiga qaybtiisa galbeed haday noqonayso awdal iyo selal xoolihiisa iyo maalkiisa buu ku bixiyay sida anigu ugu bixiyay sida rag badan oo musharaxiina oo xisbiga ka tartamay ay ugu bixiyeen ay guryahoodii ugu iibiyeen Faysal Arwaaba inuu kaliya aftuubto waxa aanu isagu ku tabcin ka ogolaan mayno kana yeeli mayno maanta waxa jirta waan baa jirta oo aan ka mid sugaynaa waantaasi waxa weey mid xisbiga gudihiisa ka socota iyo mid dhaqan ah oo iyaduna socota waqti baanu siinayna waqtigeeda ayaan siinayna halkii aan Cabdirashiid ku kala hadhayna waxa ahayd anu halkan lahaa war waqti aynu siino oo aynu sugno oo yeynaan degdegin Cabdirashiidna uu doonayay inaan bahasha aynu maxkamad markaba aynu geeyno oo sharciga la tiisano anu waxa la war sharciga lama gaarine horta bal waan ha lagu wado xisbiga ucud u aftuunaan maayo shakhsi quraata waxaana ogaanaa hadallada deelqaafka oo gudoomiyay shalay toolo ka yiri saxaafadda hadallo waxaanu arkaynaa inay tahay garab og inay tahay baan arkaynaa oo isku halaynaysa madaxtooyada war waxaan leeyahay madaxtooyada iyo qolooyinkan kulmiye ee iyagu tartanka ka baqanaya ee aad ogeyd wixii ka dhacay xisbiga kulmiye doorasho moohane calaamad saar buu ahaa wixii ka dhacay la ogaa ayaa haddana maantana ay soo farageliyeen xisbiga ucud oo ay ku wadaan
dhibaatada inta aan leeg xisbiga wadanina uu nagu daba jiraa laftirkiisu dalkana la dooni maayo in doorasho ka dhacdo tartan xalaal ah waxa la doonayaa in la iska afduubnaado marka dambe ay sidaa isaga qaataan laakiin shacabka Soomaaliland ee dimuqraadiyadda jecel ayaa anagu aan isku halaynaynaa waan u dhabar adeegaynaa waxaan xasuustaa bariga hore anigu suugaanta waan igi tirin jiray intii aan siyaasadda soo galay ayuun baanan suugaanta aan deyn laakiin bari aan suugaan tiriyay waxa ku jirtay doqonka dar yeeshay inta docdaadii gacan dabacsa soo biday adna dadaalkii inta adduunyaha haysiyo darkii xareedii daacadnimo ku siisay dabadeed ka sii daray markii uu dabareeyay doogii xareedii xoolaheena daaqsaday daryeelkuba ha joogay waxa uu yaan kugu tarin dardar iyo awoodii adigu kugu dul tuuray inuu qaniyo kugu duro damirkiisu iyo dambigaasi ka galay kaasa u sii daran abaal dawra waasid waxaan leeyahay Soomaaliland meel xasaasi ah maraysa waxa la marayaa in la doonayo in xisbiyadii musharaxiin loo sameeyo laga soo dhaadhaabay madaxtooyada oo waraaba u taaga oo nimankii musharaxiinta saddexda sanadood musharaxiinta ay ku soo halgamay ee loogu codeeyay in la yiraahdo waa la idin dhacayaaba toos baba la idin dhacaya maalin qaawoono Friday la robbery war wax loo dul qaadan kara meel xasaasi ah la maraya laakiin aanu ka yeelimayno waanu dagaalamayna halka ugu dambaysa aynu la gaarayna waxaan uga digayaa xukuumaddu farahan ay kula jirto xisbiyada kula burburinayso ee lacagta mar walba ay dhabar ka soo taabanayso madaxtooyada ku soo siinayso xisbiga waa dhisaynaa haddii hoggaanka uu naga xumaado xisbigu oo sidaa lagu qaban waayana waxaan ugu kalifaysaa inaan anagu musharaxiinta iyada anagu aan xisbigiis ka dhisano xafiisyada iyada dhisano campaign-ka iyagii bilowno hawshadeena aan qabsano inta xisbiga ee nala shaqeynaysan ay nala shaqeyso sida uu Faysal Cali Waraabe u yahay gudoomiye oo sharci ugu maxay ayaana musharax uga ahay waana taa cadeynteedii isaga laftirkiisii ayaana saxaxay ninkii shalay idinku lahaa wala tartamaya tartanka la gelaya waa maxay bal ka warrama haddaan idin yiraahdo kulmiye doorasho galay haddana dib dambaysa Muuse bixi loola tartamaya meesha ba lagu haystaa taasay ka dhigantay xisbiga wixii shalay lagu hadlay waxaan leeyahay damiirkeenu ummadda Soomaaliland ha toosto maanta waxaasi hadday nagu hirgalaan oo inagu socdaan wallahi meel fog baa layna geenaya shacabka Soomaalilandna waanu u soo noqon doonaa wax badan baanu fidimin doonaa war xisbigana ha laga daayo wareerka xisbigana wareerka ha laga daayo taageerayaashan waxaan ugu ballan qaadayaa inaanu Jamaal Cali Xuseen ilaa maalinta ugu dambaysa tareenka ninka saaran inuu yahay cid uga degta mooyaan inuu isagu aanu ka degaynin tareenka inay ila joogaan baan doonayaa in halgan aan ila galaan baan doonayaa in cid xisbiga joogta ay halgan ila gashaan baan doonayaa goray xuquuqleyntan in laga naxamaha in badan baan soo samirnay in badan baan soo dhabar adeegnay siyaasaddu waa dhabar adeeg waa lagu weerarayaa waxa aan doonaynaa waa madaxweyne waa xil madaxweyne adkaysi fara badan baan laga doonayay waxaan leeyahay oo aan ku soo gabagabeynayaa ilaahay Soomaaliland ha barakeeyo diyaar baan u nahay anagu inaan dalkan u shaqeyno dalkan inaan ka badbaadino min shar habaabkan uu ku jiro iyo fawdadan uu ku jiro imika uu ku jiro wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wixii su'aalana diyaar baan u nahay weeyano dadkii Soomaaliland ugu waaweynaa dhaqanka haday noqonayso iyo siyaasiyiinta ay arrinka ku jira xisbi qaranna inuu burburo maaha inaan kulligeen wada daawanana maaha sida udub ay saaxadda uga baxday sida kaleeto damac ayaa doorkii horeeto udub burburiyay damac rag kaleeto ay ka baqanayeen udub waxa loo burburiyay waa ka wada warhaysa maantana in indhihiino shan haddana u cudul burburiyo ogolaan mayno ka yeeli mayno shakhsiyaadka waa iska qabanaynaa waana maartay wala raacay dalkana de shuruuc buu leeyahay haday shuruucda shaqayn weydo de waa lagu kala tagayaa adeer faraha la isula tagaya waxaan wax ciyaar ma aha yaa ma aha in yaro soo shaqo laga bedelayo ma aha waxa weeyaan sharci iyo golo dhexe iyo nidaam baa lagu kala baxay xisbiguna shuruuc buu leeyahay cidda shuruucda ixtiraami weyda haddii shuruucdii dalka joogtay ay ixtiraami weydo de fawday nagu abuuraysaa meel khatarna weynigaas ilaahay naguma keeno anigu
maxay ahayd way caddahay أنا أفكر كاجي شيء ما يدعق لي قاعد يكسو السلام عليكم أول بود بيبرييني إما كنا وذي قارك هاي ده واحد وضار عطيمنا ده هذا وما تقول ما وضار كيس إنده عشانه والله أركيا ووح أسكعت وشمال يقرر يابا شمال يقرر يابا يحس بيقعد يقرر يابا وحلوجي تاجر هذا يميسان كان ضلك كويس أنا اللوجي وحنا لو بلعبه أوريدين عرقلنا لو بلعبه لكن وحنا كحمه أو أنكحمه هدي قدومية هي يقول له أذيك سنة قدومية هي بشرة تقول نك أنا وجهي لني وين مركي أنا ونمد نمن كوك عبادة يه والله حسبي يجي بربري ولا يجي قاعد حسبي يجي حاي ما أنت هدي نمن كي يجي لفت الكودي أي شيء سواء أذيك سنة ومت أيام ترى سجنا كواه سمع درنا كواه تاريخ السياسة ده وكل اللي دونه هدي أرنكاس وكل ده سمعت فهم ولا ده سيد حسبي كل مية وكاد يقعان وقدوميه وقدبيه ولا هي ده دورتي ده هدي الله يراده ترتم بال يقول لك يا عصب يا هدنا مركز ترتم يقول لك يا ولا عسمين هين مركز هدنا كل مية ترتم الله قدر كبد فوضى عنه وعبود دل كبد دور شيء كيسي تقول عينا ما يجي كمسؤول حسبك deadline هذا متشر تورقدنا وتحطها كقرآن deadline متشر والرواية ده عادية والسلام عليكم ورحمة الله